بسم الله الرحمن الرحيم وهرين maamulka SSC Khaatumo wuxuu tacsi tiiraanyada ka dirayaa falkii argagixiso ee maamulka Soomaaliyeedka ah uu ku diray Salmaan Aadan Cabdi Madoobe magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag 27kii bishii 8aad ee 2024 oo maanta ahayd sidoo kale waxaanu tacsi ka diraynaa shaqaaqooyinkii ka dhashay falka argagixisanimo oo mar labaad shacabka SSC weerar lagu soo qaaday oo lagu dilay laba wiil oo ka tirsan shacabka SSC Khaatumo maamulka SSC Khaatumo waxa uu si dhowisho ugu hayaa ulana socda falalka argagixiso ay ku kacayaan maamulka argagixisada ah ee Soomaaliland waxa uu si adag u cambaaraynaya falalka oo la xiriirinaya socdaalkii dagaal horinta iyo cambaaraynta ahaa ee uu horjoogaha Soomaaliland ku yimid magaalada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag waxa xusid mudan in nabadgelyada magaalada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag uu salka ku hayay heshiis beelo wada tashaday nabad ku wada noolaanshahooda sidoo kalena marnaba uusan ku jirin maamul iyo dawladnimo lagu heshiiyay qardarooyinka cadcad ee ka socda Ceergaabo iyo gobolka Sanaag ee daandaansiga ah jawaabtoodu waxay noqon doontaa mid cad haddii aan laga waantoobin falalka argagixisada ah ugu dambeyn maamulka SSC Khaatumo isagoo oo tixgelinaya xeerarka caalamiga ah iyo nabad ku wada noolaanshaha iyo diris wanaagga haddana sinaba uguma dul qaadan karo dhaqdhaqaaqyada argagixiso ee ka imanaya dhanka argagixisada Soomaaliland ee cadaystay gardarrada waxa la farayaa dhammaan ciidamada difaaca maamulka SSC Khaatumo inay heegan sare ugu jiraan difaaca dalkooda iyo dadkooda una diyaar garoobaan xaalad kasta oo iman karta aad baad u mahadsantihiin